wararkii ugu dambeeyay degmada Hudad Qalay Hargeysa June eber 8/2/24 xarunta caafimaadka ee magaalada Qalay Hargeysa ayaa bilowday qaybinta malato nafaqaysan oo loogu talagalay qoysaska haysta caruurta yaryar. maanta oo kaliya shaqaalaha rugta caafimaadka ayaa gargaar aad loogu baahnaa u fidiyay ilaa 50 qoys oo caruur leh. sidoo kale inta badan dadka deegaanka Qalay Hargeysa oo ka mid ah dadka waaweyn ayaa bilaabay tacbashada galeyda. muuqaalkan soo socdana waxa uu muujinayaa hal nin oo ku guuleystay beerista galeyda oo bil kadib qoyskiisu heli doonaan wax soo saarka galeyda oo ku filan 6 bilood ee soo socda. haddaba waxaanu aaminsanahay in qof kasta oo qaangaar ah ku nool gobolka Daawa uu beereed ka bilaabo 5 sano kadib aanay u baahnayn kaalmo shisheeye iyo deeqo.